مسكين دور سنة يا أي أنين كان عصدا أقل كيسي بكوسو باق محلك ظهركي الباب كيسي صوتها قو وحوير نكي مسكين كا ورنك يا الله وحسيو وحنا قسي وحا إلهي نسيه ودقي مال قبين كهذا مغلي إنما دي يسيبوا يقول بننكا مسكين كي الباب كتاجن سوق ليا إيه كان وأنا المسكين وباها والله سوق ليي أقل كي فرد قال لفريسيي ودقي بعيد هذا محل هاي لأن دور سنة يا نهو الرياضة نكون العليا وما حي أرجعتني نك الله وحسيو لو واحد الله كسيه وحنا قصي هيا بالك فريسي بيقول ورا بقضاء كان بريس بالله كان أو عني هيل بالله كان أو عني مرق بالله كان أو عبي شراب بالله كان أو عبي كلون بالله كان أو عني باستا الله كان أو عني دقاق بالله كان أو عني وحي أقل عنت الله كانوا دو حبك بتجين وحول بأو عني إن مسكين أباها كورن وعلي وحي الله كان ألم يجدك بيقول حامد دافن بقى بيانا كهلين odagii baa yidhi aabba anigana cunnadeeda ii keena buu yidhi odagii ganacsadaha maalqabeenka ahaa ee aqalka iyo gawaadhida dhex taallay waxa ubada dhex jooga ilaahay uu siiyey asaga waxaa loo keenay odagii bariis yaroo cad iyo caano dhanaan baa loo keenay wuxuu yidhi adeer idhegayso ninkii allah wax siiyow nasiiya baa tidhi aqalka cuntadii lagu kariyo dhan waa lagu keeno waad cuntay anigii aqalka iska lahaaya waxaasoo hantiya ilaahay siiyeyna labadaa baan ka cunaa labadaa oo dhakhtarkayga ayaa igula taliyoo yidhi dhiikar baad leedahay wax dhanaan ha u dhowaan dhakhtarkaa igula taliyoo yidhi macaan baad leedahay wax macaan ha cunin dhakhtarkaygaa igu yidhi subag iyo dufan badan baad leedahay hilib iyo maraq ha u dhowaan haddaad doonto inaad maalmo adduunyada caafimaad ku sii joogtidna dhakhtarku wuxuu tala igu siiyey bariiskaa cadiya caanaha dhanaan inaan ka cunee adiguna waxaa tiri wixii aqalkaa la keeno dhan waad cuntee labadeenna kee baa ilaahay wax siiyey buu yidhi markaas ma ninka wax walliba cunay baa ilaahay wax siiyey mise miskiinka caanaha dhanaan iyo bariiska cad cunaya kee allah hayna fahamsiiyo الله ينفهم شيء نعمته أنت هاي ستأونك أنت كما كان هيجن وعاد أديك واد هاي ستد ما القبانكم ما هايستو ما لحظوا ما هايستان لأن إلهي بقيبية عقله قيبية وأرزاقه إلهي قيبية وأولاده قيبية وضنمته قيبية حتى دتك كلا ضنما في عن dadka kala ubad fiican dadka kala arsaaqad badan dadka kala akhlaaq wanaagsan dadka kala aqli badan dadka kala aqoon badan انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا سيد بن آدم كانوا كلا سريسين اقبل قليه هاي لكن وحاذو قاتابا إلى هاي كليه هاي تفضيل كلا سرين تدنبي آخرة بن آدم كان كلا سريسين تاسع فضل بدن با إلهي تاسع صحي أقادا بركا وحي إلهي أدقى وكسيي إلهي يقوم هنق ودك جابان وودك أدوك وقود تكنولوجيك هرايا ساقيا مرايكا كوبال ليدي وودنا دا أدوية وقود هرو مرسن لكن أيان درادا دادكي سكود عدي وحا كمدا دادكي قاركوا سيدي أشقينيين أكل بأقون خوارق العادات إلهي وفرايي inay reere iyo ilmo ay lahaayeen bay halmaameen ay iloobeen qaarkood siday u shaqaynayeen waxaa dhacday inta uu musqusha galaayo inuu dhibsado oo xafaawadan ciyaalku ay isticmaalaan inuu ninku isticmaalo injineerku uu hal mar keliya un xaafadda markuu tago saxaradii kaadidii iska saaro waxay ku tabceen oo dhan dad kala intifaacsanaya iyaguna waxay qabriga galayaan iyagoo ilaahay aakhire aanan garanayn may horoo mareen marka may berihii bay horoo mariyeen laakiin insaaniyaddii hoos bay u dhacday iyaka maanta insaaniyaddii hoos bay u dhacdayo waa kan ninkuu xaaskiisii buu iloobay oo ilmihiisii buu iloobay
oo naftiisiibuu iloobo wuxuu ku leeyahay intaan zuuliga aan tegaya waqti baa iga dhacaya oqoon ii korodhay baa iga baxaysee xafaawadii keena buu leeyahay waan xidhanayaaye sara jooga isagoo shaqaynaya ayuu saxaradii kaadida isku sii daynayaa horumarka Jabbaan u gaadhay waa horumarka noocaasa ma loo baahan yahay kaa markaa looma baahna markaas kaa looma baahna berihii bay hore u marinayaan laakiin insaaniyadii god bay ku sii dhacaysaa bani aadamtinimadii hoos ba u sii socotaa hoos idan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyadaba ilaahay wuxuu u soo dirayay inay insaaniyadda kor u soo qaadaan kor inay bani aadanka qiimihiisa ay soo saaraan maxay markaa bani aadanka qiimihiisa ku soo saarayeen bani aadanka awalan qabla kulli shay allihii abuuray bay barayeen bani aadanka ilaahay abuuray bay ku xidhayeen allihii koonka iska lahaa jalla wacalaa ee jirsiiyey ee nolosha ku deeqay ee inay dhimanayaanna ku qasbay ee qiyaamahana soo saari doona la xisaabtami doona ee waxay nicmada haystaanna siiyey allahaasay markaa nebiyadu dadka ay ku xidhayeen horumarkuna maaha dhul la qurxiyo iyo waddooyin la qurxiyo iyo warshado inoo biiro iyo dekado inoo bata iyo diyaarado aan samaysanno iyo horumar weeyaan laakiin horumarkii saxda maaha horumarka runtu waxa weeyaan waa bani aadanka oo ilaahay sida wax looga qaato la baro bani aadankoo la baro maxay sidee sida ilaahay wax looga qaato sida ilaahay loo raali geliyo sida ilaahay loo caabudo sida ilaahay loo weydiisto sida ilaahay uu rabo inuu u socdo bani aadamku horumarku waa kaas